waxyaabo badan oo ay dadka muuminiintu kugu jeclaan karaan ayaa jira laakiin waqtiga khudbada oo iska kooban waxaan ka soo qaadanaynaa 3 qodob oo ay kugu jeclaan karaan dadka muuminiinta qodobka koowaad waxa weeye in aad ka warhayso oo aad la socoto xaaladaha dadka walaalahaaya caafimaad qab iyo xanuunba in aad la socoto farxadooda iyo murugadooda madaxweynaha haddaad tahay in aad u naxariisato dadka aad maamulaysa in aad u cadaalad samayso in aad ka shaqayso horumarkooda waa waxay kugu jeclaanayaan dadku macallin haddaad tahay ardayda aad u dhigayso in aad u naxariisato oo dhexgal wanaagsan la yeelato oo si ammaano iyo ixtiraam ugu gudbiso aqoontii waa waxay kugu jeclaanayaan aabba haddaad tahay inaad awlaadaada u naxariisato oo si wanaagsan u tarbiyeysana waa waxay kugu jeclaanayaan imaam haddaad tahay masaajid tujinaya dadka aad tujinayso inaad xaaladooda la socoto oo aanad quraanka ku dheeraynin ama khudabka aanad ku dheeraynin waa wax dadka ugu soo jiidaysa intaas cagsigeedu waxay keenaysaa in quluubta dadka aad ka fogaato in lagu naco in lagu karaahiyeysto in lagu dhibsado ayay ku keenaysaa waxa uu leeyahay nin gabiyaa ah ziyaadatu al-mar'i fi dunyaahu nuqsaan qofku adduunyadan waxa uu siyaadsadaa waa nuqsaan cimrigaagu hadduu kordho aakhiradu dhawaanaysa maalkaagu hadduu kordho xisaabtiisa ayaa badanaysa wax kastoo adduunyada kaaga siyaaday waa nuqsaan weeye وربحه غير محض الخير نقصان معاشك الدنيا كما عاشتانا حدي أين أهين خير بدح ترن وخساره أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ضدك وناجي وحكوه كان سمي وهذا الدونسن قلوب تودا فطالما استعبد الإنسان إحسان وناقو قلوب ضدك أيكوه كامل من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه روحا هنتida ilaahay siiyay dadka ku deeqa ee gacan furnaada waxa uu leeyahay maal الناس قاطبة إليه dadka oo dhan ayaa dhankiisa u soo heelanaya oo soo badanaya wal maal lil insani fatan maalka iyo adduunyaduna ruuxa insaanka fitnad ay ku yihiin ahsan idha kana imkanun wa maqdiratu وناجي أو سمفل أو إحسان أسمى ضدك إذا كان إمكان ومقدرة هذه أي صورة قال لمدينة أي جرتو أو دينا أي جرتو وحالة يابا إن أنا دسكوهر مرر كله وأنا دوناك نسمين كرين أو دينا عن الهين وحوليه فلن يدوم على الإنسان إحسان حياك من لم تكن ترجو مودته هذا ضدك إحسان السميسو حياك من لم تكن ترجو مودته وحاكو السلامي روح كستفو آنت كفلي إنو كجعلاده حياك من لم تكن ترجو مودته لولا الدراهم ما حياك إنسان هذيش لماذا يا الدنيا دو أين جرينا إنسان بكم السلامين أيوليه قضب كلبات أي كوكو جعلان كران ضدكو وحوي التحية وسلامتي إن أد سلامتو مركا ضدك الله كلانتو أبي هريرة رضي الله عنه وحاو نبي كوري صلى الله عليه وسلم إن أويري لا تدخلوا الجنة جنة قال ميسان حتى تؤمنوا إلا أدخل ميسان ولا تؤمنوا رمين ميسان حتى تحابوا إلا أدسجعلاتان أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما إذن شيء شيء حديئة سميسان أدسجعلان إيسان أفشوا السلام بينكم أي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تحدينا فافية إفشاء السلام وحين نقول إيسا عدك وقر الله بعض مركز قف سلام إيسا سيدا قفكي كاليردين إيسا جوغين ومغلوب وحاك الله إفشاء السلام تي أي نقول إيسا إن أتسلام تروح والبواد لكلنت صغيرا أو كبيرا أما هنقض الروح وين أما هنقض الروح ير إن أتسلام تنوحي نقول إيسا فلين الفليسي أمر كان نبي أفشوا السلام بينكم وحاك الله أي نقول إيسا إفشاء السلام كي إن أتسلام تروح أتقرنيسو إيا الروح أنا أتقرنين به ابن مسعود رضي الله عنه وحاوليه النبي صلى الله عليه وسلم
إن من أشراط الساعة أما علاماتك مالك قيامه دعي له قرنايو وحاكمد أن يسلم الرجل إنه روح سلام روح كله أو له سلام قرشي أقول إسكوليه درتيد مويان marka waxaad arkaysaa in aynu mujtamacayna si guud ugu fashilnay ifshaaqu salaam oo dadka is salaamaya ay yihiin dadka is yaqaana hadii uu ruuxu salaamo qofuna garanayna aw qariibsanayo oo uu la yaabayo oo uu odhanayo miyuu yaqaanay muxuu ii salaamay maalin kastaba uu ii salaamay muxuu iga maagan yahay muxuu iga baahan yahay muxuu iga rabaa waxay noqotay wax la isku la yaabo oo la isku qariibsado bal waxa laga yaabaa in lagu maleeyo nin waalan markaad ruuxii ka soo horbaxaba salaamta ama dadka aanad garaneyn salaanta u qaybiso waxa laga yaabaa in lagu maleeyo ruux wax ka khaldayihiin ilaahay ha soo hadayo ilaahay ha caafiyo wala lagu ducaynaba walaalayaal waxa ku soo gabagabaynaynaa qodobka saddexaad ee ku sababi kara in ay ku jeclaadaan dadku waxa weeyaan az-zahadatu fima 'inda an-nas in aad ka fogaato oo aad zuhdi kaga sugnaato waxa dadka agtooda yaala in aanad guraynin waxa gacmaha dadka kale ku jira saxaabiga la yiraahdo Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ayaa nabiga u yimid sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri ya rasuulallah rasuulka ilaahayow waxaad ii sheegtaa amal ii sheeg hadii aan sameeyo ilaahay ii jeclaanayo dadkuna ay ii jeclaanayaan wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah adduunyada ka zaahid oo jacaylkeeda qalbigaaga ka foge ilaahay ayaa ku jeclaanaya subhanahu wa ta'ala wazhad fima 'inda an-nas wazhad fima aydihim waxa gacmaha dadka ku jira waxa dadka agtooda yaalana ka fogow oo damac iyo hunguriyuna ka galin yuhibbuka an-nas dadka ayaa ku jeclaan idan walaalayaal sunnahaas in laga zaahido ma fi aydi an-nas waxa dadka gacmahooda ku jira waa sunna ay noo jideeyeen anbiyadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo soo diray adduunyadan nabi kastaba marka ummadda loo soo diray dacwada uu la yimaado wuxuu u sheegayay inuuna u soconin adduunyada ay haystaan iyo madaxtinimo iyo waxyaabaha agtooda ku weyn nabi nuux alayhi salaam waxa uu leeyahay ya qawmi la as'alukum alayhi mala qawmkaygiyo idin weydiisan maayo maal in ajriya illa ala Allah mushqaayadayda iyo abaalkayga ilaahay baan ka sugayaa nabi hud isaguna waxa uu leeyahay alayhi salaam ya qawmi la as'alukum alayhi mala qawmkaygiyo idin kama baahni oo idin kama rabo oo idin weydiisan maayo adduunyo iyo maal la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun saastarteed walaalayaal markaste oo ruuxu hungureeyo amba uu indhaha u taago ruux kale waxa gacantiisa ku jira oo adduunyo ah karihuhu wa abqaduhu way karahsanayaan dadku way dhibsanayaan way nacayaan wayna ugu cadhoonayaan maxaa yeelay li'annahu naaza'ahum محبوبهم وحي أي جعلايين أيو لقب صدي أو كهيستا ومن استغنى عما في أيديهم روحك كافتوما كمار ما وحدتك أكتو ديالا ولم ينازعهم في دنياهم أن الدنيا دود اللقب سنين شرف عندهم وجل قيموا أيودتك أكتو دكوية شاء وانا أولوين هذا حالوا يديين ريع عراقة oo reer Basra ya Basra ama magaalada Basra ugu mudan ama ugu qiimo badan ama ugu sayidsanaya la weydiiyay waxa uu ku jawaabay sayyidul Basra wa al-Hasan al-Basri reer Basra sayidkooga iyo haldoorkooga ugu mudani waxa weeyaan Hasan al-Basri waxa lagu yiri bima saadahum Hasan al-Basri muxuu dadka kaga mudnaaday oo kaga qiimo batay oo madax ugu noqday ayaa la weydiiyay
وحاولي احتاج الناس إلى علمه ضدكي أي أقونتيسي هي علميسي وباهضي واستغنى هو عن دنياهم يسوون وحوكا كافتومي الدنيا دودي هي مالكوي لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة هويديسن ابن آدم باهي يحاجو وسل الذي أبوابه لا تحجب وحد ويديستا إله عن الباب ديس الحري وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله إلهي هديئات ويديسي سي سؤاشي سكتكتو إلهي وعرونيا وبني آدم حين يسأل يغضب ابن آدم نمرك لو ويديستو أيو عروضا أو بلا بايرو كحمادو ويدين تالا